shirkan waa shir muhiim ah waana shir runtii danjirayaasha Somaliland ay dawladda daafeeda ku leedahay ay runtii ka soo qayb galeen sidoo kalena khubaro badan oo muhiim ah oo uu ka mid yahay Lord Kim Darroch oo runtii ahaa safiirkii hore Ingiriiska Mareykanka xilligii 2016 ilaa 19 sidoo kale ahaa National Security Advisor iminkana runtii xubin aad u firfircoon oo loo ixtiraamo dunida ka mid ah uu nagala qayb galiyay runtii waa muhiim in danjirayaasha Somaliland dibadda ay soo noqdaan dawladda maaragtay siyaasadeeda cusub ay kala shaqeeyaan ama siyaasadda cusub ay jeexayno runtii wasaaraddu intii dambaba reform bay ku hawlaneed badan reformkana in lagala hadlo maadaama runtii dalka ay mataliyaan dibadda ku mataliyaan waxaan sameynay siyaasaddii arrimaha dibadda waxaan sameynay siyaasaddii qurba joogga oo runtii diaspora engagement uu aad muhiim ugu yahay siyaasadda cusub ee rabno inaan jeexno saddex waxaan sameynay xeerkii danjirayaasha oo ah gaadhka iyaga maaragtay iyo diblomaasiyadda arrimaha dibadda Foreign Service Act baa la yiraahdaa waxaan qabanay shirkii qurba joogga runtii institutekii diblomaasiyadda mustaqbalka ee wasaaradda lagu tababaray baa runtii socda marka in arrimahaas oo dhan laga wada sheekaysto in siyaasadda cidiraha faraanti dowladda Soomaaliya laga wada sheekaysto in safiirada runtii fursad loo siiyo in iyaguna ay wax ku daraan iyagana runtii qaabka ay doonno inaynu u wada shaqeyno oo ka duwan qaabkii hore oon ahayn oo kaliya waxaasaan qabanay iyo input ee maxaa soo kordhay ama maxaa output ah ee ka soo baxay dadaalada faraha badan ee aad gacanta ku haysaan ayaa runtii uu ku saabsanaa waana 3 cisho aqoon isweydaarsigan loo sameeyay diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha wasaaraddu waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka tarayo gudashada waajibaadkooda hadday tahay in ay caawiyaan wasaaradda mas'uuliyiinteeda sare ee siyaasadda arrimaha dibadda hoggaamisa hadday tahay siday u support gareynayaan ama u caawinayaan missioniska iyo xafiisyada Somaliland ay dibadda ku leedahay iyo hadday tahay guud ahaan horumarinta xirfadoodaba waxaan aaminsanahay in aqoon isweydaarsigani uu wax weyn ay u tari doono oo ay ka faa'iideysan doonaan shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta intii nasiibka u heshay in ay tababarkan ama aqoon isweydaarsigan aan idhaahdee ka qayb galeen waxa la isla gartay ama la isla meel dhigay fahanka ama sida ugu habboon ee fariinta Somaliland oo midaysan dunida ay u gaari lahayd iyadoo oo laga midaysan yahay mabda'a iyo istiraatiijiyadda iyo ulajeedka aynu ka rabno inaynu noqono dawlad ka mid ah dawladaha dunida. I found this workshop to be incredibly engaging and empowering. I put forward a presentation on diaspora engagement directed to our ambassadors, and they gave me wonderful feedback and were extremely engaged and interested in prioritizing diaspora engagement. I believe that it's a key priority for Somaliland and for our ambassadors, and I think that overall it's been really great to get the feedback and engagement that we've received today. It's my first visit to Somaliland. It's a great pleasure to be here. I was asked to come and participate in your diplomatic training, and I'm mainly talking about how to engage with governments like my own and with America, where I served, and with Brussels, where I served a lot the European Union. It's a great pleasure to meet your representatives overseas. I think Somaliland is an exemplar of peace and stability and democracy in a region that is quite troubled and quite turbulent. So it's a huge pleasure to be here, and I hope I can help you to realize your objectives in terms of your international relations. Chorus runtii chorus buu ahaa la yiraahdo waa diplomatic training weeye marka waa chorus runtii ka mid ah koorasyada aadka muhiimka ugu ah diblomaasiyiinta ama kuwa cusub ha ahaado ama kuwii horeba ha ahaadeene shaqada wax weyn buu ka tarayaa haddii ay noqoto xidhiidhka waxaan ku idhaahday adduunyada kale la yeelanayso sida aad ula shaqaynayso waxaan ku idhaahday diblomaasiyiinta kale sidii aad ula shaqayn lahayd ama u wada shaqayn lahaydeen qurba joogta oo kale oo wax aad iyo aad maaragtay faa'iido u leh